waan arkay maartay dhibaatada ka dhacday meesha iyo maartay sida hoteelka loo geystay waxay ahayd inaan soo eego meelihii dhibaatooyinku ay gaareen ee kamid ahaa magaalada Jijjiga markaan halka ka bilowday baan go'aansanay maadaama hoteelkan yahay hoteelada ugu caansan magaalada mid kamid ah runtii wax fooxun baa ka muuqda meesha oo aad iyo aad loola yaabo waxaan maartay isku day doonaa inaan maartay la shaqeyno mulkilihii hoteelka oo shujaac halka ila jooga dabahan laakiin arinta ugu muhiimsan ee ugu weyn waxa weeye ma aha sajabka gaari muraayadaha iyo sariiraha iyo guryaha waxa la soo kabi karaa laakiin arinta ugu daran waxa weeye sabka gaari maartay dhaawac gaari qalbiga dadka maartay beesha jaarso gaar ahaan maartay isirkiyoodii laga dafiray loo diiday arintaas runtii arin aad u xanuun badan waxa kale waa la soo kaban doonaa insha Allah waan caawin doonaa shujaac laakiin arinta ma rabo inaan dhamaantii ka xaalmariyo waxa weeye wixii magaca dawladda ku geystay dad Soomaaliyeed oo ab iyo isir baa walaalanahay oo maartay hay'toodii dhan la dafiray oo la yiri ma tihiin Soomaali oo laga saaray arin aad looga xumada weeye arinta in raalli ka ahaataan ayaan rabaa inaan sheego wax walba oo maartay nabadgelyada maartay xiyaleeyeen ila iska ilaaliyo wax walba xuquuqdiina ah iyo xaalmarinana aad noogu iman doontaan hadii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta iyada oo 12 isbedel oo dawladda deegaankii ay meeshan soo mareen oo nin madaxweyne oo weligay salaamay aan ku arag waa ninkii koobaad ee aan salaamo aan gacanta isqabsano inaan wadanka walaalo ku nahay iyo deegaanka cadeey weeyo ma aha Mustafa nin u baahan shaqadan maanta oo haya ma aha waa nin aqoonyahana inuu dadka badbaadiyo walaalayo kaliya uu yimid madaxweynuhu annagu sanad baan arintaas ka shaqeynaynay waxaanu ogaanay inuu yahay niman u baahnay inuu maanta shaqo dawladeed galo laakiin markay arintii adkaatay wuxuu isku diyaariyay sidii dadka walaalaha loo kala dilay iyo ceebaha dhacay si uu u bogsiyo ayuu meesha u yimid dibku maanta hoteelkaasi waxa weeye magaalada dhan baa casheeyay jirtay deegaanka ayaa casheeyay jiray halkaas lagu xaragoon jiray dad wax ma garataas u galay waan ka xumahay waa goobtii koowaad uu booqdo magaalada intuu yimid waxa madaxtooyada ka ahayn ujeedaduna waxay tahay bal burburka magaalada gaaray inuu arko dabcan madaxweynuhu gurgur uma booqan karo bakhaar uma booqan karo laakiin wuxuu ka war hayaa dhibka dhacay intuu leeyahay burburka soo gaaray magaalada iyo dadka iyaga la kala soocin oo hayb loo kala soocin marka dib dhacdo dhibku qabiil ma lahan dhibku dad ma yaqaan kalar ma lahan cid kastuu saameeyaa marka madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa runtii uu ka war hayay ilaa inta safar ku soo jirnay waxyaaluhu intuu wadanka joogay intuu ka maqnaa ka xumaabay kamid ahayd waad la socotaan maalintii koowaad ee dhibku dhacay ee halkan laga tarxiilay anigii ugaaskii dad la mid ah inuu madaxweynuhu ka hadlay oo statement ka soo jeediyay oo intaas oo dadka advocate sameeyay waxaan socdo waa khalad hadda isma dhageysanayn waa ayaan darro jirtay kamid ahayd madaxweynuhu wuxuu ku yimid rabitaankiinu ku yimid wuxuu ka xumaaday dhibkii idin haystay idinka jaarsi kalimaha Soomaali dhan buu haystaa dhibku ummad dhan buu saameeyay marka madaxweynaheena waxaan leenahay madaxweyne maanta shacabkii ugu horeeyay aynu aragno weeyaan waa markii koowaad dadkeenu ay telefoon la soo galaan xarumaha dawladda waa markii koowaad ay boorka madaxweynaha ku salaami karaan ku qaabil karaan marka waxaan idin leeyahay wixiina gaaray ummadeenu kala midnahay waxaana xaalmarin ugu filan maanta in madaxweyne inagu aan dooranay oo rabitaankeena ku yimid oo shacabku rabaan inuu maanta inoo yimid